Ninka aan maanta ka hadlayno waa Ken Bose. Wuxuu hogan yahay magaca majaajileyste, balse ma ahan sida la filayo oo ah inuu yahay majaajileyste. Ma ahan majaajileyste. Sidoo kale wuxuu hogan yahay inuu yahay nin Muslim ah, balse ma ahan nin Muslim ah. Haddaba magac Ken Bose. Ken oo ah boqor, balse Bose ma ahan magac sax ah. Sidoo kale wuxuu inta badan soo bandhigaa fiidyo anshax xumo ah, isla markaa taas uu taageero badan ku waayay. Ha yeeshee wuxuu taageero shacbiyad badan ka raadiyay dhanka Soomaalida. Waxaanu joognaa qarni ay horey noo soo madadaaliyeen Fartuun Balbalaarka oo matalaysa Xaliimo Khaliif Magool, iyo sidoo kale qarni mursal faradegan uu noo soo qaadayo kac u kac, balse qarnigan ka duwan oo waxaan xiiseynaynaa ka duwan taageerihii oo waxaan xiiseynaynaa nin inta badan ka tarjuma dhaqamada foosha xun, isla markaana uu taageero badan kaga waayay dalkiisii. Balse waxaan taageeraynaa nin dalkiisii taageero ka waayay. Wuxuu ka soo jeedaa waddanka Tanzania, balse dalkiisu taageero uu ka waayay ayuu ka helay dadka Soomaaliyeed iyagoo xiiseeya murtida qaawan ee inta badan uu sameeyo. Ken Bose wuxuu samaystay magac been abuur ah kaasoo ah Mustafa, balse ma ahan magac sax ah. Waa magac uu ku maro bulshada Soomaaliyeed. Isagoo cabsan ayaa video laga duubay, isla markaana caynaya YouTubeleyda Soomaaliyeed kuna tilmaamaya in ay yihiin kuwa dhuuntooda saaxiib ah. Ken Bose sidoo kale taageero kama haysto dunida kale, balse waxa uu isaga afkii ku sheegay inuu taageero ka haysto bulshooyinka Soomaaliyeed oo kaliya. Muhiimadda uu dalku u imaadana ay tahay maadaama dalka kaliya laga taageero inuu Soomaali yahay. Haddaba Soomaalida waxaan u jeedinayaa in ay taageeraan YouTuberskooda, balse aysan taageerin YouTuberska kale caalamka ee aan waxtayada ah aysan hayn. Tusaale waxaa kaga filan Ken Bose wuxuu u talahayaa muxuu soo gudbiyaa majaajileysta mise waa fanaan. Waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho isagoo showgiisii ama bandhigiisii looga qaybgalay $15, balse $15 ma isaga kaliya ayaa iskale Ken Bose.